diyaaradda A320 waa diyaarad rakaab ah oo casri ah taasoo ay soo saarto shirkadda diyaaradaha ee reer Yurub. Diyaaradani waxaa si weyn u isticmaala shirkado diyaaradeed oo caalami ah. Waxaa loo adeegsadaa safarada masaafada dhexe iyo kuwa gaaban. Duulimaadkeedii ugu horeeyay waxa uu dhacay 22 Febraayo 1987 iyadoo shirkadii ugu horeysay ay adeegsatana ay ahayd Air France sanadkii 1988. Tani markaasi waxaa la soo saaray in ka badan 10,000 oo diyaaradood oo nooca A320. A320 waxay qaadi kartaa inta u dhaxaysa 140 ilaa 180 rakaab ah iyadoo ay ku xiran tahay qaabka fadhiyada loo habeeyay. Dhererkeedu qiyaas ahaan waa 37.6 mitir halka ballaceeduna uu yahay 35.8 mitir. Diyaaradani waxay ku duuli kartaa xawaare gaaraya 871 kiiloomitir saacadii waxaana ay u safri kartaa masaafo u dhaxaysa 3,300 ilaa 6,300 kiiloomitir iyadoo ay ku xiran tahay nooca diyaaradda. Qoyska A320 waxaa ka mid ah noocyo kala duwan oo ay ka mid yihiin A318 oo ah nooca ugu yar, A319, A320 oo ah nooca asalka ah iyo A321 oo ah midda ugu weyn. Intaa waxaa sii dheer waxaa jira laba qaybood oo waaweyn oo kala ah A320ceo Current Engine Option iyo A320neo New Engine Option. Nooca A320neo waa mid cusub oo leh matooro casri ah, buuqeeduna uu yar yahay, shidaal badan iyo sidoo kale wasakheynta hawadana uu hooseeyo, taasoo ka dhigaysa mid deegaan ahaan u wanaagsan. Diyaaraddan waxaa adeegsada shirkado waaweyn oo ay ka mid yihiin American Airways, Qatar Airways, Turkish Airways iyo France Airways. Waxaa lagu ammaanay kalsoonida ay leedahay, isticmaalka shidaalka oo yar, buuqeeda oo hooseeya iyo in si fudud loo dayactiri karo. Waxaa kaloo ay caan ku tahay inay ahayd diyaaraddii ugu horeysay ee ganacsiga adeegsata nidaamka fly-by-wire, taasoo micnaheedu uu yahay in kontaroolka diyaaradda uu ku saleysan yahay nidaam elektaroonig ah halkii laga isticmaali lahaa xargo iyo farsamooyin gacanta ah. Diyaaraddani A320 waxay noqotay mid ka mid ah diyaaradaha ugu iibsiga badan ee dunida iyadoo door weyn ka ciyaartay horumarka lagu sameeyay duulista rayidka ah. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. Internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. Internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.